haddaba waxaa laga yaabaa in noloshu kugu adkaato oo waqtiga kugu adkaado oo culays badan aad dareento oo wax walba ay isbedeli waayaan, laakiin waa inaad ogaataa isbedelka iyo culayska iyo waxaan kugu dhacaya inaan ahayn wax adiga kugu gooniya ee bulshada caalamka oo ku nool oo dhan in badan oo kamid ah ay kula qabaan. dad badan ayaa kula wadaaga, laakiin waa inaad mid isweydiisaa, adigu horta ma isbedeshay mise sida hooyada kuu dhashay baad tahay ood ku eg tahay mise wax isbedela ayaa samaysay. haddaba marka koowaad waxaad horta u baahan tahay dad qof muslima aad tahay in aad aaminto qadarta. xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kataba allaahu maqaadiira qabla an yukhluqa asamaawaati waalardi 50,000 50,000 oo sano ka hor ayaa la qoray. intaan samada iyo arlada la abuurin ka hor ayaa waxaa la qoray qadarta ayaa la qoray. oo marka waa inaad sidaas aamintaa, waa inaad ogaataa wax walba kugu dhacaya oo kugu adkaana yihiin wax hore u qoraay, wax adiga kugu bilaabanaya xilliga inaynan ahayn. wax kastoo aad marayso way qoran yihiin. maalintaada subaxii kuu soo beriya, qoraxdii kuu soo baxda waa wax qoran, qoraxdii kuu dhacda waa wax qoran, xilliga aad dhimanayso waa wax qoran, waxaad cabayso waa wax qoran, candhuufta aad dhaqayso waa mid qoran, waxa kuu ridhamayana waa wax qoran, waxa kuu urayo waa wax qoran. marka waa inaad sidaa aamintaa. taa markii laga yimaado waa inaad ogaataa noloshu waxay u baahan tahay step by step. tusaale ahaan adiga markii aad dhalatay caloosha hooyada intii aan la gaarinba marka hore candhuuf baa laga abuuray, kabacdina waxaad noqotay cad hiliba, kabacdina waxaad noqotay qof astaantii leh oo xibnihii loo dhammaystiray, kadibna naftii baa lagu abuuray, kabacdina waxaa la qoray naftaada waxay cuni lahayd iyo waxaad cabi lahayd inta adduunka joogtid. waxaa la qoray camalkaagu mid xunaduu noqon lahayd mid wanaagsan, waxaa la qoray wixii aad aakhiro noqon lahaydna waa la qoray. intaa kabacdi waxaad gaartay jiif baad gaartay, haddana gurgurad baad ku laabatay, haddana fadhi baad gaartay, kabacdi haddana waad istaagtay. waa istaaggii haddana socod baa socodka orod baad ku dartay, orodkii haddana waxaad soo gaartay inaad qaangaar noqoto oo wax kala saari karto oo lagu yidhaha qofkaanu waa qof baaliga. haddaba intaas oo dhan markii aad soo martay oo adigu intaasoo dhan soo dareemaya step by step aad noloshii uga soo gudubtay, maadaama aad step by step aad uga soo gudubtay, guushaaduna waxay u baahan tahay iyaduna sidoo kale step by step. ma jiro qof hal mar iska guulaystay, ma jiro. sidaasoo kale waxaad u baahan tahay inaad waqti gelisa oo dadaashid adiga oo dul qaadanaya. culays kastoo kugu yimaada waa inaad ku sabartaa, ilaahayna waa inaad ku aqoonsataa. aayaddii waxay ahayd suurta baqara ku jirta wastaciinu bisabri wasalaati wa innaha lakabiiratun ilaa cala alkhashiiciin. oo ilaahay wuxuu leeyahay kaalmaysta sabarka iyo salaada, ina allaha maca saabiriin aayad kale ahayd. oo ilaahay wuxuu maciisa yahay qolada sabirta. ilaahay waxaa la yidhi waxaa u dacwooday sabir baa u dacwooday. marka wuxuu yidhi qolo ilaahayow qolo walba waad lamaana ayaad u samaysay oo wax la ku bedel cagsigeeda habaa samaysay, laakiin anigu kaligay baan ahaa. ilahay wuxuu yidhi aniga ayaa macaada ah, qof kasta oo sabrana oo khatarta ku samrana anaga ayaa maciisa ah. marka adiga waxaa lagaa doonayaa culays kastoo kugu yimaada inaad ku samirto, aadna cibaadaysto, salaada iin kaa tegin, wakhtigeedana waa ina ilaalisaa. haddaba guusha waxay u baahan tahay si aad guushaada u gaartid maanta haddaad meel fiican oo dadaal hadaawadid si laba jibaar. waxaa la yidhi faraska maxaa jabayda ama usha maxaa loogu dhuftaa? waxaa la yidhi waxaa loogu dhuftaa farasku ha ku daro orodka ha sii badiyo. marka adigu maanta haddaad dadaal ku jirtay hore u dadaalaysay, dadaalka sii laba jibaar, guushaadu way dhowdahay. haddii aad hadda fadhidana hadda fadhiga ka kax, dadaal si aad guushaada aad u gaartid. si aad guushaada u gaartid waa inaad sii dadaashaa oo tilaabo aad hore u sii qaadaa. taas waxay kaa saamaxaysaa markaa kaa saacidaysaa inaad guulaysato ood hore u guulaysatay. guushu marka waxa weeye dadaalkaadii iyo fursadaadii oo ishaleelay meesha si fiican u eeg. guusha lagu sheegayo waxa weeye waa dadaalkaadii oo lagu daray fursadaadii. markii aad dadaal badan aad bixisid, fursadna aad heshid, markay isku soo aadaan waxaad noqonaysaa qofka guulaystay. masalan tusaale, qof waxaad arkaysaa wax bartay, shaqo fiican oo dhaqaale fiican ka shaqeeya. qofkaasu fursadda shaqada dad badan ayaa heli karay, laakiin waxay ku heli waayeen dadaal aysan bixin. isaga laakiin wuxuu ku helay waxa weeye fursaddaasu waa dadaalkii uu bixiyey. marka haddaad dadaal badan aad bixisid, maalin unbaad helaysaa fursaddeeda.
marka sidaas ayaa inoo ballama intaan cashirku xigaan la kulmi doono dhammaantiin waxaan idin leeyahay khayr iyo barako fiidiyowga hadduu kusoo gaarana asxaabtaada la sii wadaag waana noo muhiim mahadsanid